بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبات داود يالدي لهانتين با ميل كستاد جوجتان halkani waa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland stuudiyihiisa magaalada Burco daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo idinka soo diyaarinay waraysi aanu la yeelanay jilayaasha caanka ah ee Sooraan iyo Jawaan ku soo dhawaada telefishinka qaranka Jamhuuriyadda waxaan jeclahay intaan barnaamijkan iyo su'aalihiisa inaan gelin in marka hore bulshada Sooraan waa kuma Jawaan waa kuma aad iftiimisaan taariikh nololeedkiina oo ilaad ku soo koobtaan wax yar koraysiyo Sooraan tii anigu waxaan dhashay bir hore dhashay waxaan ku dhashay gobolka Togdheer taariikhdeeduna de waxa weeye taan inta soo jiray baan soo jiray waxa allaaliyo de waxaan qabtay garanay taariikhna de anigu garanay aan ka sheekeeyo imsa xaasbad leedahay imsa carruurna waxa leeyahay laba xaas carruurna washan imsa habla imsa laba ina ma iyo saddex loo way Jawaan waxaan jeclahay saas oo kale diyo Jawaan bilaabnay yar taariikh anigu bir dhaxan dhashay beri dhexe ayaan dhashay xilima waxaan dhashay 1974 abaartii daba dheer baan dhashay imsa xaas iyo imsa carruurna wareer imka xaas quraan la imka carruurtu waa 8 imsa habla imsa inama 8 carruura waa shan aniga saddex hablo ma sha Allah riwaayadaha aad markaad curinaysaan riwaayada badan baad curiseen dad badan baana jecel riwaayadihiina maxay idin kaga dhashaan guud ahaan riwaayadahaas sidee baanad uga ilaalisaan dareenkiina gaarka ah Sooraan riwaayadaha horta waxaan ka sameynaa wacyi bulshada dhexdeeda yaala riwaayadaha waxay ku saabsan yihiin bulshada dhexdeeda waxa yaala inaan wax ka sameeyno waxaan uga ilaalinaa anagu qofna riwaayad kama sameeyno cidna kama sameeyno laakiin bulshada dhexdeeda dareen yaala baan isu geegeynaa marka qof kastaaba inuu fahmo oo arko waxa ka yahay wax bulshada dhexdeeda laakiin anagu cidna waxba kama sameeyno cidna wax uma sameeyno cidna uma shaqeyno Jawaan dad badan baa riwaayadaha aad matalaysaan idin jiro rag iyo dumar baa leh haddana bulshadu inta badan waxay yaqaanaan Sooraan iyo Jawaan waa maxay sababtu waa muranaysaa sababtu waxa weeye ma maqashay dadku horta waa isku wada mid dadka waxba kama duwanin laakiin wax waliba waxay leeyihiin imika shirku markuu halka marayo wuxuu leeyahay abaanduunayaal waxa sababta aan gaarka uga noqonay waxa weeyaan inta roon anagu hormuud ka nahay minhu wax kale oo aanu kaga duwanahay waan abaabul ku maal wadna waa sida riwaayadaha aad matashaan dad badan baa daawada dadkaasi way ku xidhan yihiin inta badan oo way jecel yihiin inay la socdaan haddana dad baa jira inta badan dhaha Jawaan iyo Sooraan xukuumadda riwaayadaha waxba kama matalaan waxba kama sheegaan bal iyada arintaas maxaad ka oran lahayd horta xukuumadda waxba kama sameeyaan marka horeba waa tan ku sheegay horta anagu cidna waxba kama sameeyno marxigtada xukuumadda de baqdirooyin maxay weeyday xukuumadda sharci bay leedahay waa dawladii marka xigta dawladdu aniga waa dawladeedii adduunyada joogtaana waxay leedahay dawladan xumaan lahayn ma jirto laakiin dawlad xumaanteeda sheegtaa ma jirto oo soo bandhigta sida awgeed inagu waxa weeye anagu dawladda inaan wax ka sheegno waa dawladdeedii dhaliilaheeda iyo waxeedana de dadku iyaga dhexdooda istoosiya waxa jirta waxay la mid tahay in dawladdiisa wax ka sheegay miyaad aragtay nin suuqa yimaado isagoo qoyskiisii ka yimid gurigayga aan ka yimid gabadhan aan qabo waa waalan tahay inantan aan weyna carruurta ugu weynaa habeenkii dhan waa wareegta inanku waa tuug inantan yiri dadkay shiida nin yiri oo wali suuqay soo taag horta miyaad aragtay ma aragtay adiga wariye ku saalay ma soo maaha waxa weeye marka dawladdu waxay la mid tahay in reerkiisii wax ka sheegayo gurigiisii in adduunyada le war adduunyada asaas bay la mid tahay waxaan kale oo anagu iyo ninka saaxiibkeeda daraasadaan ku sameeyna buuqeenu waa farabaday horta intaynu buuqeyn adduunyada badigti waxaana jirta buuqa markaanu eegnay waxaanu isnidaameen dhaweydaan leeyahay qadarka u soo jeeday baan wax sii weydiinay aniga ninkan waxaanu is weydiinay war buuqan waa maxay dabeedna waxaanu dib u raacnay ninka inoogu qofka inoogu qaylada badan leh hadii shaqada dawladda laga siiyo shaqo markaas waa aamusaya ka dawladda u shaqeeya way iska aamusan yahay mar allaaliya markaa uu ka tagaabo qaylinaya marka waxa baanu isni war uu hagaajin maaha wax hagaajinba maaha waa shaqa doonad
dee marka anaguna haddaan dawladda shaqada uga baahno waan iska qaylin doonaa haddii dee kalena waan iska xamuusnaan doonaaye laakiin waxaanu dhisay war wuxuu ma aha wax hagaajiye waa shaqa tag jawan maxaad ku daray ku darso waxaan ku darayaa intaa uu mahadsan saaxiib horta wasla uu sheegay laakiin se waxaan ku darayaa intaa annagu waxa baa markaan uga arko shaqeynta dawladda wax ka sheegeeda iyo falaqeynteeda iyo maagisteeda waxa baanu isniri waxa la yidhi nin tuugaho meel fadhiyo lacag tirsanaya shilimaada ayaa nin kaloo tuugii u yimid aan qadayniba dabadeetana wuu soo maro wuxuu ninkii lacagtii qadaadicda saas u dul saaray ayuu soo ninkaas saad uga qadaysaa maanta ushii sitay xanja xagga dambe ku dhajiyo lacag 10 rubaad oo saaray buu sidaa wuxuu yiri war baleegtaasi waa sagaale mir buu qaat dabadeetana ninkii buu sidaa u eeg markuu rubadii qaatay soo wadnay haddana toban mar mid kale ma ka qaadata tii kale markii hore weerka iyo toban buu saaray haddana wuu soo hogaamiyo wuxuu waxa jira war baleegtaasina waa sagaalo mar dambe qaad waa ka tii hore wax ka saaray tii hore baadiga waxaan isnay berigii hore abwaanada iyo fanaaniinta iyo dadkii jilayaasha ay dawladii hore ayaa wax laga saaray xukuumadda dhexe Soomaaliya sidii loo maagay ku dhacday waa kuwa Soomaaliya ka dawlad weeydi waartiina dabdabka aan laba aqoonsaneen in la isu keenay yare labada caantayda yaan baladika wax la idinka saarine badeeda geeyda waxa kale oo cabdirsaa weeyaan aan ognahay qofka adduunyada markaan aragnay degtida dawladii waaweyn oo tegay oo dhulka lala simay waxaanu isna wartiinay waa wanaagsan Ilaahay baa idin gareeyay calankeena tawxiidka ku yaala وده أقول سلان على اعترافنا بالورطة إنه وإسم إنتهى لنا بقى أقول سلان إنه ما يستعترافنا تاين لو صعب يعني هاي waxaan jeclahay inaan idin weydiiyo kale intaan ku go'tino barnaamijkan haddii la dimaag gelin lahaa oo aad noqon lahaydeen sida shirkadaha filimaanta soo saaray kale Hollywood maxaad isleedahay waad soo saari lahayd saameyn intee legna way yeelan lahayd sida jawaan haddii la maal gelin lahaa Soomaalidu waxa ku maamaadaa ama buuraha ama buur ku tiirsanaw qofku mar haddaan isagu dhaqaale haysan oo aanu maal gelin haysan ama aanu meel ku tiirsanayn oo meel laga soo fangareynayn inta horta si carraabo waa ama yar ee uu daala haddii aanu noocaas oo kale noqon lahayn ninka sooraan wuxuu la tartami karaa daaragtirada waaweyn oo Hollywoodka marmarba maskaxdiisa ka horeysa haddii aanu heli lahayn meel la gacan qabata ama meel la soo saarto ama meel qarashka naga caawisa ama meel aanu dhabarka saaro waxa xaqiiqada in Hollywood kala tartami lahayn iyo filimaanta musalsalka afaf kala ku baxa إلا سويت الجميل مت صومالي وكحقيقة سنة كذا بهدل كين يدد كين لقوم تري إنه كين له. روح عن كتر يعني. أنا إذا طلع السواق عن قبطي وإحنا السواق قبطي ماشان كيبل تي في جاس عاد عاد بنقول الشقي بدل من على قبطي نجع عاوي هي اليوم بس كاي جربت لكن عيد كلام وإحنا نجع عاوسة. ودين عشر كذا أما الدولة ده عد إحنا قاعد وسابة ما شرتوه لكن وحلا جاي أبغى هدي أنا هي اللي انقلبين موراليس واحد صار صار لهاي إن شاء الله يمكن أدي لهاي كديكو وأنا صوين دون أدي لهاي كديكو صراحة رواية بدن متشانو دد بدنا يداودان رواية بدن متشان وح عقبضه إذن كهري مثل أنا ما نوشي كرته هايو وح لوجود تران روايدها waxay u baahan yihiin dirwaad in la sameeyo wixii loo ekaysiyo marka wixii loo ekaysiinayo imika waxa jirtay riwaadan tahriibta ka sameeynay waanu mataleynay dadkii xagga ku dhaqnaaye dadka qabqabsan jiray cawaanka oo kale ahaa aanu isni matale dadka waxay nagu qaadatay inaanu naqshado fara badan sameeyno marka waxa weey wax dheer rog la yiraahdo baa jira oo marka la doonayay wax la sameeyo wixii loo ekaysiyo taa awgeed waxaan iga hortaagan tahay kharash mar hadaan lahayn waxba aan isla haynin wax badan baa ka bedelanaya sida aad ugu tala gashay bayda ku soo bixi lahaayeen runta riwaayadaha marka laga yimaado waqtiga aad ku fikiraysaan ama aad qabanaysaan waqtiyada aad firaaqada haysaan maxaad kala ku midmidaleetaanad qabatan maxaad dhageystaan heesoo kale mar riwaayado filimaan wallahi anigu waxaan waxa qof walba wax isku dhageystaa iska taageera anigu laba sheekh baan jecelahay anigu markaan meelaha gaas ka joogo inta aan fakarayno hawshan aan ku dhex jirin laba sheekh oo aad iyo aad u afdheer oo marka sida u yar dhageysato haddaad shabaqda wala ugu horeyso waxba ka faa'iideysa waa nin la yiraahdo sheekh Mustafa iyo sheekh Dirir iyo gabayada suugaanta hore Soomaalida intaas la jeclay in dhageysto laakiin heesaha lafteeda marba la iska yartay tuura waad ka dhageysanaysaa waayo waa suugaanta Soomaaliyeed fanaaniinta keebaad leed marka waad taageertaa dhageystaynta badan
وريال فلان أنا هو سوق خيمته تقول هرا قبل خسران ولا خسران أبو جعله خسران داير في قبل دقائق هذا عد كذا يبحث كوا كله رأيات بروضة تاجر بروضة جعله جيب يقول soorano baladina su'aasha taan joogan wadiyadan ku waqtiyada maxaa ugu qabtay dee horta inta uu dhageystay baa la dhageystay ama wax kale ma dhageystay laakiin anigu gabayaa baa lahay khatara oo ajayba oo anaaba dee gabayo is dhageystay inta badan anaaba is dhageystay kuubli gabayadaadu maanta halkan halkaas koobso halkaas koobso ya gabayada gabayada waxa dii gabayada dadkii hore laastay aan ku warramay wax allaale iyo wixii dadku oran lahaa kuwii hore ay yidhi ku xamaarin dabeed markaan arkay inaan meeshu waxba oolin kuwa horaan kuwooda iskala yeeshado wixii dhintay waxa xalay wax allaale iyo wax xalay anigu markaa gabayo horta aan leeyahay way jiraan qaar dad hore leeyahay iska sheegtaan way jiraan gabayadeeda waxa kamid ah gabay khatara waxa la yiraahdaa gabayga allah iyo magaalada maxaa wax isu muuqmuuqdo allah iyo gidee ma ku tiriyaaba gabayga waxa yiri hoyaalay الله يوم مقالة محا وحيس مغموضة إلهو مقالة محا وحيس مغموضة ربي قالوا مقالة ور محا وحيس مغموضة الله يوم مقالة محا وحيس مغموض وعباد الكيو إلى قدنا وحن كسو قابجة يا الله يوم مقالة محا وحيس مغموض هذا قبل هذا الجوا كلمة حياة كلمة وانا رجع حد يروح علي هو ذا معي هو حد رجع علي مقالة والله يسموك مغرايو ورياه القبيله هذا كمان soorano القبيلة طبعا له ايوه mid kala jiro oo inta badan dadka deeysano معليا wararta aniga arko أرنتي wararta nin hadraaw la yiraahdo waxaan ka hayaa ما قاس garmaqaatayaashiya dadka beero ruux quran dambalni ma la soo bixin hadii guro يعني بليك اللي wariyaahe awaanina ka daadeer gabay ma yaqaan mareen uma dhaweey wariyaahe beeri garmaqaatayaashiya dadka horta dee inaan iska hadla ma fiicna gabaygaana inoo timi gabayga baad maqan sama la daliga anigu waranigu ninkan oo kale mihi nin miyul baan miyul waaye markaan aniga marmar baan istiraahdaa wallahi hadda aniga baan idhaa gabayga markaan balkiri waaye ka daani waxaan idhi odaalayo meekan hooyaalay mare kan waxba hooyaalay baa ka maqan ma day li gabayna hooye god baa jira waa god ka gabay waxaan idhi godka gabay markaa godku ku jira miyaa ninku maya wariyaahe gabaygaygan wariyooyinkan iyo ilaahay yaqaan gabaygan gabayga waxa la yidhaahdaa odaalayo hoobe war idhi wadan oo kala way waxaan idhi وأذا جبي بريها واني كانتي وعذريه السلام ليه هذا هو بان وير دير دارتي دير كان كوريغي وعذريه السلام يا وير دير هي وابع ديدي ودان oo kala laga ka weecdayo weyne qulacdiis waa damalo waaweyne dawga sheekh ninkan hore u marin uu baqbaqaya ninkan ayaan hore marin oo baqbaqaya nin station joogaa niman isdiray wuu xidhayaaye فلينك يا قضبة قضاء يحرق قضبة من ستيشن شوغاني من استيي وحيديا عين با انا صور كل اميغا غرا عين با انا صور كل والله ساو سعون تسا كولا غليه طف هو اسك عالي وكلمه عالي داي ما قوي صور ورياره horta وريا ما دوا شيخو اي لكن انا بقول لك واحد لا دي سميس هس بلوت يغلط بلوت كل غير ما هو هس اسلي هس سنه كان لو بخيو هس سنه هاي انا قاضيه لحم كان اسا صاريا ايوه اي هستن هس وناكسن والله حنكي هو بلا وناكسن تبي لحق صاري يا عدكيس لكن يكون عدكيس عدكaaga yaa dhigeysan karaya wararta anigu heesta waxaan doonayaa inuu noqoto heesta qarniga oo la yiraahdo saxanka abdowr iyo 70 Michael Jackson baa weysto saxan buu score buu dhigay baa heesti score kan doonaya inay noqoto maxaa la yiraahdaa heesta waxa la yiraahdaa عقاب يا متيسن ربي وعرون وحلا هيستا بيه يا لغو عذابنا ربي كو عرون عذاب يا متيسن رجل لبا عنادي عند الدول كيغده اوف انا اقدر كور وركي ورا يا هيسو kala baray masallan saaraan marka war ada la xameeyo waxa laga sii saddex waxaan doonayaa sad xayasiiskeeda laga sii sheego telefishin ma waa heestaan soo wada sanadka jacaylka
وحيس جعيل مياه مسافر كواحد وجعيل هست سوني هو عند الدولة يقدر مركز الله خص بيقول دم كمان ورود ما يتقدر أما ويلكم دي هو إلا فيه يقدر هو يسود عند الدولة يقدر مرة أقول سام مركز يقول صلى الله ورتينا يركادي وحبا يقصيها ما أنت ما هين مرة أقول سام وان كوتها وان كوحينا حجابات قبطي دبتنا نفتح قبطوها سام وكتعش waan jeclay inaan kusii gudubno intaas iyo madadaaladaas kulay barnaamijku waa barnaamijkii aan waraysi gaar ah la yeelanay Sooraan iyo Jawaan dad caanaba tihiin oo jilayaal oo inta badan iyo Soomaalida ama afka Soomaalida meel kasta laga hadlaba la dhigeysto dabaqadeebad ugu jeceshin inaad la fadhiisataan bulshada waxaan ugu jecelahay dadka anagu horta marka dadka isbaweynin iskuma waaweynina kuwa sare ma jecleen la fadhiisano kuwa sare dadka hoose had iyo jeer iska danyartaa inaan la fadhiisano la socono dadkayga caadiga ah ayaanu jecel lahay inaan la fadhiisano la socono waayo taageerayaashu had iyo jeer dadka ugu hooseeya ugu badan yihiin haddaad kor isu qaado dadkii aad markii hore kasoo dhexbaxday ama aad la midka ahayd ay ku waayaan waa mushkil kuwaasaanu jecel inaan la joogno oo la socono oo la sheekaysano oo la fadhiisano anagu waxaan la soconaa dadkeena walba la soconay in horto bulshada iyaduna waa isuukaayo mid laakiin badanaa waxaanu jecel lahay dadkii aanu ku dhex jiray inaanay marna waayin inaan helaan oo aanu meel la fadhiisano makhaayadihii meelihii iska fadhiisan jiray dee halkii unaanu joognay dadkii laakiin haddee maalin la isma weyno dadkii dee halkii unaanu joognay anagu misleedin hadafkii iyo ujeedadii aad ka lahaydeen soo barista iyo riwaayadahan waad gaadheen soo xisleeday weli waxba idin ka dhiman oo heesi iyo wax jira qorshayaal ma waxa weeyaan markastoo aad meel marayso laysma yidhaahdo waad dambayso iskoor baad jibis annagu baasha wadda iminkaanu bilowno halkii ugu hoose baan maraynaa waxaanu jecel lahay intii annaka na taqaana ama nala shaqaysaa wayna taqaan waana nala shaqaysaa waana na daawataa ama taageerayaasheeda in kaloo badanna inaanu kasbanno waanu ku rajo weyno aanu hore usii marno haddii ilaahay ka dhigo waxa weeye annagu dadku bulshadu dee annagu maanta meel hoosaa baanu joognaa oo dad caynkaasa ma nihin dadkun baa yidhaahdaa dee waa caynkani annagu horta dadkii badi dee halkii ugu hoosaysaa baanu joognaa laakiin waxa weeye ummaddayada waxaanu jecel lahay haddaanu kaalinta tan annagu isu diray oo gallay hawsha tan inaannu mar kasta helo raalli gelino inaannu mar kasta uga sheekayno wax runa oo aanaan uga sheekaynin wax beeno xitaa annagu aanu dembi ku gallo waayo riwaayadahan aanu samaynaa waxay u badan yihiin wax bulshada dhexdeeda yaalla haddaannu annagu kuma darro muusig heeso wax noocan riwaada iyagu ma leh laakiin waxa weeye dadoo war waxaasuna way xun yihiin ninkaasu metelaya waxaasuna way wanaagsan yihiin inaannu kor uga sii qaadno waannu jecel lahay run ahaantii niman yaryar baa iminka nala shaqeeya oo mutacalimiin ahoo kameramaan ah oo editina sameeyo oo aad iyo aad u wanaagsan dee waxaanu filaynaa halkan aan iminka joogno inaannu kor uga sii kacno insha allahu dee ummaddayda iyo dadkaygana annana waanu ku kalsoona sax weeye Sooraan kolley waxaad tahay fanaan hal abuur ah oo muddo fanka ku soo jiray sidoo kale saaxiibka Jawaanna waa abwaan uriya gabayada balse dadku waxay idin yaqaanaan jilaayo oo kaliya haddaba meeye hibooyinkii kale xagad ku ilowdeen Jawaano yani kugu horeysay adiga bishaashaas ma horta dadka marba waxay ku yaqaanaan baa u tahay ma maqashay waxaad adigu isleedahay waxaad tidhaahdaa waxa lagu yaqaanaa marba anagu dadka kaalinta lagu jiro waxay noo yaqaaniin ayuu baaluuna intaas aad ku soo gabagabay ay Sooraan adigana walu waa la buur hore waxba ma sameeynin riwaayado hore waxaan ka soo dhigdhiga laakiin hore wax sameeyntayda ma badnayn riwaayado waxaan ka soo dhigdhigayo riwaayado isaseeg la oran jiray iyo riwaayadii qilaa iyo jacayl daacadaha iyo yawal qalay waqtiga iyo riwaayadaas waxaan ka soo dhiga laakiin abwaan hore oo aad loo yaqaano ما أنا هاي. كيفك يوصل أنت اللغة ضحتها هي صار مركز أنت بدنا الأركان هذه هو استيعادك وعد عاد يد معانا تكسوتين. وردتكم بيقولوا بعي إذا مساج سكادي بيشري. هي. كذا ينتمي ورني تلاقي مساج سكادي وعد وناكسن تبي كده بيها سيبا. وعد وناكسن اللي هنا حاجة صارين ماشي سوار كده تقول عد هذا اللي مرة مغلى هاي. عد وناكسن ورتانو قانون صاركم ملهي.
laakiin way jiraan inaan dadku yidhahdo maxaad u heesi weydi wax noocaas laakiin anigu cod aan maydh la gol la kala tago kanun baan yar dhaamaaye ninkanun baan yar dhaamaaye ma wax weyn mali kalaan in yar dhaamaa uun suurada haddaba in badan kolay su'aalayn ku soo jeednay maantaba bal sheeko yaro dadkaan kaga yaro qoslina in yar uga sheekada ama sheekooyin bal u soo qabaad mid xiiso la sida sheekadaas dadweynaha waad igu soo ururisay sheeko allaale iyo iminka sheeko aan ka sheekeeyo waxaan ka sheekaynayaa ninka saaxiibkaya ayaa beri bay noogu daray anigu inkastoo aan islaama leeyahay oo dumar leeyahay haddana waa aniga dumarka kuu sheego waan ka yar baqa oo aad lama sheekaystay iminka telefoonada waxbaaba yar caawiyeen marka ninkanoo saaxiibkay aan aqoon ma meri ku yidhi waryahay gabadh baan la hadlay meel joogta masaan ku nayahay inaadeer inaynu isguursanaa baan doonay markaasay tiri waxba inaga xumaan maaya anna dhabbaan mooday saaxiibkaa waryahay war kharashna ila doon gabadh baa i ogole aan ila soo kaxaysidii markaasuu ma dhammaysateen masaan ku yidhi haa waa dhammaysanoo waa noo dhantay هو يهيو واحد جاي مركزان كويري قوى مير هبلة الكمان سوق هذا نقول دو أنا دي أنا ويدان تاير هو هانتي ودو واحد يوتي وحبيني كحمار مايا مركز ماشي سو تاجنون بي يان كويري ديار بان زاكو ورمدي إلى سي بي يوحى سوتها يا كبرنا إلى قياستي ضبط لغاني قلت ده كبرنا أنا تنوي صاحب كي مركز وحبان لقى قصدي ماشي وحبي كمان قصني سيجي حمي أنا ويدان ما يده waxba igama xumayne isaga iga xumeeyo markaan ku yiri gabadhu waa taas waan heshiin ayuu gabadhi tiri war ninkan manaan heshiin marka xukuumay xanguuri inaad yar adiga qof kula waxba inaga xumaan maaya inta dadka horooda si man doona taleefanka ta wala iskay waroodu si man doona kala ayro ahaat waxba inaga xumaan ma inta wala islay gabar ku tiri war waxba inaga xumaan maaya ayuu mariyo soo macaan taleefana gabadhi markii isla taagnayna muu aamusano mariyo dabada muu gelin ma kuleegiin buu dadna maryahan waa maxay sidoo waa mariin qoomiyaan waash oo gabadh meherada soo mariya loo soo saaray isku eeg waa bal sidaa isku eeg leen sixiriya waxba bay moodo waxayna dhan tahay buu aniga waxba igama dhin inay sana wadii waxaan ku jeclay sana zaad ibnka qaar badan baan u jeclahay fawli ya bilka weydii ugu jeclayso anigu waxaan ugu jeclahay saa horta استبار مكا ugu jeclay gabigeedaba hees la yiraahdo ma dictor isnacayba hees imka la yiraahdo hees taas horta ugu jeclay imka hees ugu raasay ku jirta bariga hore laakiin waxay oranaysaa illa inaad marka dhageysanaya baan heesta waxay oranaysaa دكتور اسماعيل isagoo idilayo ma dabqada jirkayga way tiraahdaa isagoo idilaya waa dhab weey waa runtiida waa yasaa noocaas دكتور اسماعيل hay هون كانوا جعلها انا ويا سoo hore lagu jacay hay waati hoos kale way raacda absolutely sida lagu jacay heesa kuwa garbaxay anigana yaho anigana yaho taas waa tii hore haddaan dhameynay ku jira balka ma dana wadi waa taas ay iyo tirada waan ku rabay goormaati deeshalaan meel maanta yeemka mar walba waan ku rabay goormaati waa sax ay ka soo noqday tana safarkii Yurub joogo aadteen waxa kugu la yaab badnaayay aad ka xasuustaa kulleeyde sooraanayn buu ka xasuustaadnay baad ka xasuustay bal intaad waxa ugu la yaab badnaa markii la wada quraad ka degnay meel 6 milyan oo qof quraaf Soomaaliya garanaya ku jirin wada aan midka Ingiriisi da garay wallahi intii sida noo anfacday intii Ingiriisi ma yaqaanay maalintaas baa looga abin inuu waa weyn burburiyay ما بغيت تيجي إلى هنا ويانا كم بقى سيدي نوع أنفعه والله هو معي وريا 6 مليون وقف كافكرة وقف قرى الصومالي كتير تذكير السوق ينا جدا كم بتشري تذكير السوق ينا جدا كم بتشري المرة صار حقل فروما أنا قال كاكلا نبي دبعت مرة حق أصلا ما نوصل ميل لقى بحو يا ميل لقى توب مرة صار عادي يا رجال وراح هذا الثلاثين يبل الكلمة دي هل كان إنجليش تهاب شوانا إيه ورواري قوة دبعت أنا markaan meeshii soo galay baan ilmadow baan isla soo taagnay
dadkii baan soo ku wariyaa bal sug bal dadku waxay sameeyaan baygeega meel hadda soo gashay afkeeda aqoonna laba degdego mushkilad kale aan haysataa lari soo egbaanu sidana iyo koofiyada waaweyn waxaabana la moodaya iyo liigtayna cascasoo torooriyaal caalami ah bana la moodaya ayo kuwa soo ingiriiska qaar baa qaatan liigtayna xasas kuwa ugu dhalatan baa qaata waxaan soo qaadanay waxas midna garamayno soo walba aamus dadkii halkaas marayaan kuwa wadka u dhashay baasaboor casbi taagay halkaas ka baxaya anu garamayno kuwa halkaas la dhawr la saamax dadka baasaboor baa la soo baxayaan baalir baa loo dhibaya buux anaguna baasaboor Soomaaliland marsidan marka meeshii soo taagnay mushkilada qorayga naga qabsatay waxay ahayd show bahalka loo dhiibay fiisahan iyo waxan magaca la kala bedelo inagu Soomaaliga ma nidhaana Ciise Cabdi Ismaaciil oo saddex magac ma lagu qoraa show wuxuu ku qoray Ismaaciil Ciise Cabdi waxba isla marka sirneen baa la qoray ilaa markii dambe fahmi doonaa markuu baasaboorkii guri ka amay guri waa sirneen ayaa guri Ciise Cabdi Ismaaciil markaas uu iga qabo baasaboor adiga ma maaha abaldii abaho magaca Ibrahim Ismaaciil Sugla abalaga warigaan hadda ay bood ka degto meesha aan af garanayn qofka madow iska ilaa ninka madow meesha soo fadhiyo kuwa cadoono waliyo qaybta ilaahay ninkii madow markuu 7 jeer nagu soo celiyo markii uu waxaan u yaala hadalka inay taag gabadha ka soo fadhido kuwi meesha lahaay ila suug madow baa saa u dhex taagano oo kiyal madow saa ay shawra raacay dadkoo kubkabrigeedu waa qaawsan wana la qaawsayba shandadana waa jiidanayna markii dambe ku uri war gabadha ina yaro meel fadhiyo ina yaro aso meel fadhiyo bilayso balaayada kala la doon iflimaanta lagu arki jiray dabeetana inantii baan ku uri ingiriisi mar alla markan meeshii ka degay meeshii ingiriiska ahayd tagayna afartii meel hore waaweyn oo ingiriis teedina wala ka luntayba nag anna walba ma hay isla ma baxin war carabi meeshii carabi laga doonay war inantii uma ku uri waa buluxis ku hagaaj halka dabaan u baa ma maqashay goor dambe xisaabtii gabagaba ku dhowdahay ayaa gaariyo qaar gabdha diidanayay samid garaadkii ku soo degay buu dhaadraw afartii meel oo weynaa ku soo degay in halkaas soo fadhido ma ku wuxuu kala wada jajaba we have this problem today I tell why waxa ku dhibaato haysata maanta waxa why markaas ku nuli isna the language ma hayno isna dabasabor waliba naga qaad kale arawdiin agu waran ma qaatay uu imika leeyahay cilmi أخواننا اللي نعليه بالله شو يركب بحني وبيلا كعد وبيلا قطع لك كعد أسكرتين وبيجلس وإيش جلع أسكر بالمدينة لو ما قد ورشوا دت كنا حتى الإنجليز ما توقع شو يجوا أفرت توصل يا كلا بحية أفرت من توصل يا كلا قرانا يا حلول يحلو شيء ده ويفهم يعني تقول هي صور شابة صور ده قاعد ستي أمين بالو نقول على صور واحد قاعد وهذا حاجات كبيرة ما حاجة أصلا وكبحنا حاجة أصلا وكبحنا ترى مرة بدي أعمل نوريجي هذا حاجة ولا قد يرد جلس هذا حاجة ولا قد ما جلس حاجة ولا قد ما ترى ما بستعيس مركز دمو بانكوري وير أوت دور مركز يقول يس أوكي وكالك إسحاق الرئيس بيتش تبغى كتير هذا وروح هالك كبحة دور كاس ولا قبسنا يعني أنت أنا بحين بان كوفيت من العرب كوارك كان لدي جريس يسنواسيته النواسيته بس صار صغرت مركز يقول Hey, Mr. Saul, are you president of South Sudan? You are president are you Silva Care? Mr. Saul, Silva Care, the president of South Sudan. Yes, I don't know. This is Soran. Let's go. I was going to get a car, but I can waxaan Soran uu weydiiyo London bal muuqaal ahaan sida waqti London isku uniform baa loo geliyay shaar iyo surwaal fitishaar iyo cas baa loo wada geliyay soo waxaad garatay maaha kaad ka baxday kaad soo gashay kala garan anigu xalaalay wuxuu uga jeedo garan maaye guriga Ingiriisku aad ka baxday iyo ka aad sii gelisay waa isku mid waa walaalo waxaan si warmanin baa wada dhisay ma isku mid ba waxaan kaloo ku arkay meesha guriga arkaysa ay ku taalo 530 baa la dhisay soo dunida aynu eeganayna waa duni soo jabtay oo gubatay oo soo baabaaday oo wadanka adduunyada Ilaahay waxaan leenahay wadamada kale eega maxaynu eegnaa 550 meel la dhisay baan soo aragnay inaga markii waa rebuilding baa lagu sameeyaa sidii hore u dhisnaa baa loo dhisaa waa lagu sii qorayaa 1970 laakiin waxaan meesha ku soo arkay meel soo wada heeg waxaan jeclay intaynu ku sii soconaba gabagabada barnaamijkeen inoo ku darsan hambaliyada ciida munaasabadan ciid fitriga guud ahaan dadka Soomaaliyeed
waxaan ugu hambalyeynaya dhammaanba dadweynaha muslimiinta meel kastay joogaan hambalyadan ciidal fitriga darteed waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka waxaan leeyahay ilaahay dhammaantiin ciid wanaagsan bashbash iyo barwaaqo ciideedana ilaahay haynagu gaadhsiiyo ilaahay haynaga aqbalo soonkii ilaahay salaadii haynaga aqbalo faraha badnaa ilaahay cibaadada haynaga wada aqbalo dhammaantiin dee waxaanu idin leenahay innaa lillaah أنا أحبك عينك وراسك كل المشاهدين ومحيكين الكرام ملك استطاع رياش يدو تشوغان ملك استوى مدى الصومالية تشوغتو وحنو لأن هاي afka Soomaaliya waxaa أنت أفك الصومالية كو هذا الشغل وحن ميانوها بل يغرنا ميانو قبل غيره دايمك joogtaba marka hore waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciideeda haynaga dhigo ku gaadho barwaaqo iyo bashbash maxaan kale oo leeyahay dadka muslimiinta nin baa beerlaweed iyadoo saasoo kale loo wareysanayo nin waalo meel iska fadhiya ayaa la yidhi salaamaysa markaasuu waxaan salaamaya dadka Soomaaliyeed oo meesha joogaan markaasuu leeyahay miyaad muslimiinta kala salaamay markaasuu salaami maayo waayo oo ma aqoonsadaan dadka wallahi baa salaamayn carabaa iyo dadka kale muslimin waran waxaan leenahay dadka muslimiinta meel ay joogaanba waanu salaamaynaa ilaahay muslimiinta ilaahay kor ha u qaado ilaahay diintiisa kor ha u qaado ilaahay diinta ha u gargaaro ilaahay muslimiinta maanta meel walba dabba ka qiiqaya ilaahay ha u sahlo ilaahay ha ka dhigo kuwa isku tiirsan ilaahay kuwa cadawgooda meel uga soo wada jeeda ilaahay ha ka dhigo waxaan leenahay dii Allah hayna gargaaro waanu salaamaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta meel kasta joogaan waxaan leenahay ciid mubaarak Sooraan inta badan waxa la isticmaalaa Facebook badan iyo internet-ku inta badan Sooraan iyo Jawaan lagu isticmaalayo ka waran ba ku ma idinka isticmaalaa mise cid kale isticmaashay warano Facebook malin horaan u sheegay inta Facebook iyo YouTube iyo Twitter midna malihin waxaan u lahayn annagu waxaan la shaqeyn jiray waxaan la shaqeyn jiray haddaan la shaqeyn jiray YouTube-ka ay leedahay baan annagu leenahay waxay jiraan laakiin annagu mid aan gaar u leenahay oo sawirka iyagu yaalo oo aanu leenahay ma jiro YouTube midna ma jiro ilaahay qof walba tacabkiisa siiyo eegadaan lagu tabcin dhulka iyo wax walba aan laga shaqeynay maanta beertan ay joogno waa beerta weyn oo wad aragtaa in la yiraahdo Axmed Jambaqo qaadiya Axmed Xasan cali baa Axmed Jambaq baa ku tabcay waa beerta adarkaysa waa beerta qurubay deemaan dhaweed garoon bay ahay hadii dadku wax qabsadaan sida Jambaqo kale ayay wada noqon lahayd isagana waa lagu mahad celinayna bulshaduna inay wax qabsato aad iyo aad badmaadsan waa tahay daawadayaal intaasi ayaanu ku soo gabagabanaynaa barnaamijkaasi waraysiga gaarka ah ee la yeelanay Ibrahim Ismaaciil Sugile Sooraan iyo Ciise Cabdi Ismaaciil Jawaan oo idinka imadiyay stuudiyaha TV-ga qaranka Soomaaliland ee magaalada Burco waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinayaa saaxiibadayga la qayb qaatay barnaamijkan Cabdisattaar Cabdilaahi Cali Sabri Cabdiwasac Home Media Production iyo Cabdirasaaq Koronto guud ahaan ba asxaabta kale ee telefishinka qaranka Soomaaliland Sooraan iyo Jawaanna aad iyo aad bay mahadsan عبد الرزاق ما